xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo gaaraya 57 xildhibaan ayaa mooshin kalsoonida ay kala laabanayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare u gudbiyay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana mooshinkaasi aqbalay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ee mooshinka gudbiyay oo la hadlay warbaahinta ayaa yiri markii aan aragnay qodobka 29 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle farqadiisa koowaad markii aan aragnay qodobka 34 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle farqadiisa koowaad xarafkiisa D ama da markii aan aragnay qodobka 39 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle xarafkiisa A iyo B markii aan aragnay qodobka 43 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle farqooyinkiisa oo dhan markii aan aragnay qodobka 12 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle farqadiisa saddexaad markii aan aragnay qodobka 52 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle xarafkiisa D markii aan aragnay qodobka 53 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle farqadiisa labaad ama idinku qayb dambe markii aan aragnay qodobka 61 ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle farqadiisa toddobaad haddaba anagoo ah baarlamaanka Hirshabelle gudanayna waajibaadkeeni dastuuriga ahaa naloo idmaday kaasoo ah ilaalinta sareynta sharciga sida kor ku xusan in aan madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu jabiyay qodobada kor ku xusan kuwaasoo isugu jira khiyaano qaran ku takrifal awoodeed xilgudasho la'aan iyo musuqmaasuq ku aadan hanti qaran waxaan mudana gudoomiye guddoonka sharafta leh waxaan idin soo gudbinaynaa mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kaasoo ku fashilmay hogaaminta iyo horumarinta dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaanada Hirshabelle waa 99 xildhibaan 54 xildhibaan ayaa mooshin keentay waan u jeedaan aqlabiyada meesha ay jirto wax walwal ah ma lahan Maxamed Cabdi Waare haduu isdifaaci karo wuxuu haystaa 10 maalmood ha imaado ha isdifaaco hadii uusan isdifaaci karin aniga waxaan soo jeedin lahaa inuu iscazilo uusan waxba qarash iyo buuq iyo rafaad uusan gelin maadaama laga keenay 54 xildhibaan ee mooshinka keentay anigana waxaan ka mid ah xildhibaanada qaasatan ka soo jeeda gobolka Hiiraan una damqanayo waxaan leeyahay gobolka Hiiraan xildhibaanada ka soo jeeda qaasatan aniga Maxamed Cabdi Waare isku beel ayaan nahay waxaan u soo jeedinayaa inay sida aan sharafta leh xildhibaanada Hirshabelle kalsoonida uga laabanayaan in gobolka Hiiraan biri laga dareemo mooshinkaas la geeyay waa mahadsantiin ballanqaadihii doorashada waa tahaysiin markii ogaadeen marka ballanqaadkii madaxweynaha uu ballan qaaday inuu horumarkaas muddo 6 bilood gudahood waajibaadkiisa ku gudan doono hadii uu gudan waayana uu ku soo celin doono amaanada baarlamaankii doortay markii ay 6 biloodii sanad maanta uu dhaafay haba yaraatee wax uu ka qabtay oo horumar aysan jirin mar labaad marka hadii uu ka dhagaaday lamaanada go'aan waxay qaateen inay amaanadooda kala laabtaan mooshin ayayna ka geeyeen oo 6 meey ku dhow guddoonka ayayna gacanta ka saareen wuuna sidahay idinkana waa arkayseen waxaana ka rajaynaynaa insha Allah inuu isdhiban madaxweynaha shalay nimo badan la tartamay si sharaf badan ayaa lagu doortay maantana baarlamaankii sharaftu ku doortay ayaa kalsoonida kala noqday inuu isdhibin istiqaaladana uu soo gudbiyo waxa ognahay Hiiraan gobolka Hiiraan inta uu joogo wuxuu magacaabayaan 12 bilood 12 bilood waxay maraysaa 4 gudoomiye in la bedelo waxay maraysaa in gobolka Hiiraan la isku dhaxmar waayo ay noqoto milisiya beelad ay qabsadaan waxa dhacday in Hirshabelle Jowhar caasimadii iyo Xamar la isku mari waayay oo shabaab oo asaga uu soo dajiyay waxa cadeyn u haynaa in xuquuqdii baarlamaanka iyo ummadda Hirshabelle oo afku dhigtay waxaan ognahay 3 milyan iyo 500 oo kun oo dollar inay dawladda federaalka keentay Hirshabelle loogu deeqa dadka masaakiinta waagi wabiga soo fatahay wixii oo dhan afku ku shaftay marka madaxweynaha waan ogsoonahay wuxuu isku difaacay inuu san haysanin xisaabaad badan ku maqan ama dawladda federaalka ka timaado ama hay'adaha caalamka ka timaado ama Hirshabelle dhexdeeda ka timaado wax badan ku maqan waxaan dhammaan bulshada Hirshabelle ugu baaqayaa inaan loo qaadan xildhibaanada inay wax duminayaan inaan loo qaadan inay state-ka baabi'inayaan waxaan aan anaga u shakaliyo oo anaga wax ku toosi karno waa mooshinkaas waxaan kaloo baaq u dirayaa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle maadaama eedayn ay ka taalo madaxweynaha ma soo saari karo wax dikireeta ah ama wax magacaabis ah
ilaa iyo eedayntan lagu qaado haddii uu isku dayo inuu ku dhawaaqo golo wasiiro ama uu isku dayo inuu dekreetooyin soo saaro waa sharci darro sida uu qabo dastuurkeena dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka waxaan rabnaa inuu shaqada sii daadihiyo wixii aan maaragtay uga maarmeyno oo kala tashto gudoomiyaha baarlamaanka saacadan laga bilaabo maxamed cabdi waare wuxuu sugayaa eedaynay ka taalo in eedayntaas lagu qaado ay sugayaa wax dekreeta uu soo saari karane ma jiro Hamdulillah Sam News Jowhar